halkan dhinacayga ah waa xarunta agoonta ee Iftiin. waxa ay ku taalaa xaafadda Iftiin ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. waxaa ku xareysan caruur yaryar oo agoon ah. ujeedka aan halkan u imaaday ayaa ah inaan u qareemo ama aan codkayga ku biiriyo sidii loo caawin lahaa caruurtan oo ay u heli lahaayeen mustaqbal wanaagsan. maxaa yeelay doorkayga ayaa taasi ah, aniga oo ku kalsoon isla markaana aaminsan in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin kuwa samafalka iyo isgarab qabashada jecel. intaasi waa hordhaca warbixintayda. caruurtan aan dhex taaganahay waa 32 arday oo wax ka barata isla markaana ku nool xaruntan agoonta ee Iftiin ee ku taala degmada Kaxda. maamulka markaskan waxay ii sheegeen in ay doonayaan tirada agoonta ee ku jirta markaskan ay gaarsiiyaan 130 ilaa 150 haddii ay helaan cid ku garab istaagta daryeelka iyo xanaanada caruurtan, maadaama xaruntan ay ka faa'iideysan karaan ku dhawaad 150 arday. سأصدقنا خير الله كسير الله سنتها وسؤالات أبوها مارتي إلى بيجيسا مركا وح عاونات الدجال على جميع أنقاها المجرد مركا أرددا الوجه الأساسي تاعي وح كم كان نعيه كل الدول المجرد لكن هذا لا كان الدول أو مارتي ولا لا محسنين هاي وح كذا سجاران أنجوتان هاي مركا أرددا هذا عن هاي وح كل الله وأرضي طبعا هاي كل الله هذا نتكلم عن محامرينا صدق يلا أرض مرينا waxaan higsan karnaa aan jiifka aan u taageerno aan qaadil karnaa arday ilaa iyo maartay 130 ilaa iyo 150 arday ah in hoygo aan siin karno goobta ay ku baran lahaayeen ay ku codeysan lahaayeen ayaan halkan u diyaarin waa mahayna waa awood karnaa. laakiin waxay ku xiran tahay in ardaydaasi la qaabilo oo wax la baro daryeel nololeedna la siiyo sida ay dadka muxsiniinta ay Soomaaliyeed ay uga soo jawaabaan baaqa ah in la daryeelo dadka agoonta. sida hadda Ustaad Ibrahim inoo sheegay halkan dad muxsiniin ah ayaa waqafay, kuwa kalena way dhiseen, kuwana hadda waxay u istaageen inay meeshii la waqafay ee loogu talagalay in agoonta lagu daryeelo in ay qaataan doorkoodii ahaa inay caruurta daryeelaan. inkastoo xarunta aysan u dhammaystirneen agabka aasaasiga u ah xanaanada caruurta iyo waxbarashadooda, haddana xaruntu waxa ay ka kooban tahay qeybaha waxbarashada, jiifka, cuntada, xafiisyada iyo masaajidkii ay ku cibaadeysan lahaayeen. أنا اسمع أنا أسكاله قف بيجي خاص ولا مجرو إذا على عندي مركزي أو حق خوان كرتو إني حق خواتها الأولي لها مركز نسيب حقوقي لأن هكان مارتي أنا الأولي من حرونها اللي أوصل وين وآدي مارتي قيوة كالدون إلى هاي عديتها هاي قيوة جيفة هذا لها قيوة مارتي وشين قاعد لو كلمها قيوة عديدي مارتي يكون صار هاي قيوة عيادة يقولون لها قيوة مارتي عديدي اسكوب وحكو برا هاي iyo maartay iimaanki waalidku soo dhaweyn lahaa xafiisyada kala duwan. marka intaas ay ka kooban tahay guud ahaan waa 7 block waaye hal block ay banaanka laga jiro ka waxa uu ku yahay 8. iyadoo ay sidaasi tahay haddana caruurta ku jirtay xaruntan waxaa ka muuqatay farxad, qanacsanaan iyo akhlaaq aad u wanaagsan, iyagoona ku guda jiray xilligii aan tagayay adeegyada maalinlaha ah ee ay ka helaan xaruntaasi. Ibrahim Cabdullaahi Cismaan, maamulaha markaskan, wuxuu ii sheegay in markaskan uu qabo baahiyo badan isla markaana ay ka faa'iideysan karaan agoonta Soomaaliyeed haddii ay xaruntu hesho dad muxsiniin ah oo si iskooda ah inta ay isku xilqaamaan oo ay kafaalo qaadaan agoonta hadda ku jirta iyo kuwa ka faa'iideysan kara xaruntan. kala mid ah inay ka geysaan ama gacan maartay wadajir ay wax ku jiraan ayaa lahayd halkan ayaan haynaa yatiim wixii loo qaban lahaa maanta cid waliba way ka buuxaan marka dadku qaban kartaa madaxa ay loo salaxaasi nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam hadan wuxuu yiri ana wa kaafil yatiim ka haatini fi janna ninkii nin kafaala qaado agoon kafaala qaado anigii asigi jannada ayuu wuxuu yiri loo fara ayuu tilmaamay as-salatu wusta loo ayuu tilmaamay marka kursiimadiisa maanta ninkii ka qayb qaato wax barta oo ardaygaas meel u gaaro maanta waa nabiga ballanqaadkiisa waxaan filayaa inuu gacanta u ku hayso. marka insha Allah waxaan leenahay garab weyn ayaan ka filaynaa baqa hadii soo gaaran insha Allah taala cid kasto oo maartay oo Soomaaliyeed ah cid kasto oo muslim ah marka baqa haduu gaaro waxaan jecelnahay si uu dhaqsiya badan maadaama aan garab aan rabno inay
inkastoo walaalaha halkan gacanta ku haya ay ka muuqato kalsooni badan niyad sami haddana ma aysan helin taageeradii ay u baahnaayeen waa taas midda igu dhalisay in aan warbixintan idinla wadaago waa dadka na daawanaya waa seel idin sheegay marka caruurta wax ay ku bartaan agab waxbarasho ah kuma hayno meeshaani waa madrasadani aan ugu magac daray maaragtay madrasa Jaabir primary Jaabir aan ugu magac daray waa fasalada waa iska hayaamayaan waa aragteen wax sabuurad ah ma jirto wax kuraas iyo wax miisas ah waa intaas markii la helo ay ardaygu wuxuu heli karaa macallin loo keeno oo markaas wax uu bari karo laakiin waxaan haynin agabkii ardayga wax uu ku baran lahaa oo sida sabuuradii oo macallinka wax ku bari lahaa ardaygii buugi wax uu saaran lahaa iyo kursi uu ku fariisan lahaa inta markay noo suurtoodo ayaa waxay suurtagal ee noqonaysaa inaan macallin keenno laakiin inta ma hayno waxaan intaasi baaqan ugu direynaa in maaragtay cid alaal cidii na dhageysanayso oo baahi emergency ay tahay ardaygaasi waa la dareemi karaa arday wuxuu u baahnaan karo dhinaca waxbarasho marka loo fiiriyo oo sida kuraastii miisaskii sabuuradii marka insha Allah waxaanu jecelnahay insha Allah arintaasi aad garab inaan noogu siisaan waxaan ku darsan lahaa hore ee qiiman u sameeynay hal kursi hal miis ah ayaa waxa noogu kici ka marka $25 ugu badnaan intaas ayaa noo sheegay marka waxaan leenahay waa fasalkii waxa gali karto 5 miis iyo 5 kursi marka waa $25 yani saddex kamid ah ardayda ay agoonta ah ayaa waxa u sameysay meel ay fadhiistaan marka saddex arday fadhigooda ay wax ku baran lahaayeen waa $25 waxa rajaynayaa sidaas tahay waa si fiican waa fasalkiina waxa gali karto waa 10 miis iyo 10 kursi waa kursi miis waa soo qiimeynay waa $25 ayaa ma aragtay ay ku kacaysaa fasalka oo waxa lagu qalabayn karaa lacag $250 oo kuraasta ah qaybta jiifka oo ay yaaleen tiro badan oo sariiro ah haddana uma dhammaystirneen joodariyaasha iyo agabka kale ee jiifka inkastoo tirada carruurta ee hadda joogta ay haysteen agab jiif oo tayo ahaan aan ku filneen maamulka xaruntan waxay ii sheegeen inay jiraan muxsiniin kala gedisan oo waqtiyo kala duwan xaruntan ku caawiyey cuntada ay carruurta cuni lahaayeen inkastoo taasi aysan ahayn balanqaad joogto ah oo ay carruurtu ku helayaan wixii ay halkan ku quudan lahaayeen caafimaadka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha waxaan maamulka xarunta aan weydiiyey cidda ka caawisa caafimaadka carruurtan mar haddii aad ogaateen caqabadaha iyo baahiyaha ka jira xaruntan agoonta iftin iyo fursadaha ka bannaan oo aan ku soo bandhigay doorkayga baahineed daawadow muxuu yahay doorkaaga ugu yaraan waa in aad muuqaalkan la wadaagtaa saaxiibadaada taas oo sababi karta in qaar ka mid ah dadka aad muuqaalkan gaarsiisay in ay ka qayb qaataan taageerada xaruntan si agoon badan ay fursad waxbarasho iyo mid nololeed ay u helaan adiga xitaa waad ka mid noqon kartaa dadka caawinaya xaruntan haddii kale waxaad ka mid noqon kartaa walaalaha muxsiniinta ah ee halkan ku caawiya dhaqaalahooda si mustaqbal wanaagsan ay u helaan carruurtan uu aabbahooda eebbe oofsaday maxaa yeelay mas-uuliyadda daryeelkooda hadda innaga ayay na saaran tahay oo ay na sugayaan carruurtan in aan ka falcelinno warbixintan